السلام عليكم saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijkeennii falanqaynta ciyaaraha qodobada barnaamijkeena aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah hordhaca kulanka xiisaha leh ee dhex maraya labada kooxood ee Arsenal iyo Chelsea caawa tartanka FA Cup-ka ayaa la wada ciyaaraya labada kooxoodba mid walbana waxay rabtaa inay finaalaha u gudubto oo lugtii hore inta la soo dheelayna waxa waaye kooxda kubadda cagta Andhee Carabao Cup-ka waaye lugtii hore la soo dheelayna kooxda Arsenal ayaa 3-2 farqina ku wada tohogaan gurigeedana joogta waxaa sidoo kale ku maqli doontaa intuu barnaamijkeena markaasi hawada ku jiro ninkii Cristiano Ronaldo ahaa oo kooxdii Al Nassr markaasi ay kala tagi rabaan kooxdee ayuu ku biiri karaa Cristiano Ronaldo ma Europe raba inuu dib ugu soo noqdo Laporte oo markaasi isaguna Hansi Flick si aad u amaanay oo dhahaya inta aan aniga madaxweynaha ka ahay halkan isagana uu sii joogaya macnaha wuxuu ku baneysanayaa tartanka madaxtinimada ee Barcelona Lamine Yamal oo albaabada ka xiray kooxihii doonayay Jeremy Jagwed oo sharaxay sababta rasmiga ah ugu biiray kooxda Liverpool Lewandowski oo shaaciyay goorta uu doonayo inuu ka fariisto kubadda cagta ee Real Madrid oo markaas iyaduna laga soo doontay ninkii Dean Hudson aha oo markaas laga soo doontay qodobadaas iyo qodobo kale inta ayaad ku maqli doontaa saaxiibayaal soo dhawaada iyo sidoo kale inta macallimiinta la filaya in Pep Guardiola uu bedelo saaxiibayaal soo dhawaada hadii aad tahay saaxiib horta noola joogay like iyo share noogu dadaal hadii aad tahay saaxiib nagu cusubna subscribe-ka noo saar si saaxiibada adigoo kale intana ay noogu soo biraana share-ta markaas noogu dadaal aad baa u mahadsan tahay aan ku bilowno waxaa jira kulan xiiso leh oo u dhaxeeya labada kooxood Arsenal iyo Chelsea kulankan waa lugtii labaad tartanka Carabao Cup-ka koox walbana waxay rabtaa inay Wembley iska xaadiriso ama finalka tartankani ay iska xaadiriso kulankan caawa 5 saac oo fiidnimo ayuu markaasi soo galaya labada kooxood macallin Liam Rossner ama Okiale iyo sidoo kale Mikel Arteta labadooduba waxay doonayaan mid walba inuu finaalaha gaaro Rossner 7 kulan oo kooxdan waday 6 kamid waa uu badiyay hal kulan guuldaro soo gaartay guuldaro soo gaarsiiyay Arsenal soo gaarsiisay markale intana iyada ayuu markaasi la dheelayaa waa uu caaban yahay wuxuuna leeyahay kulankaasi aad ayaan ugu diyaarsanahay kooxda Arsenalna waxaa rabaa inaan comeback markaasi ku sameeyo iyadana aan mataqaana gambarka la gadiyo sidoo kale intana aan gaaro finaalaha markii kulankeeyii ama finaalahayga ugu horeeyay kooxda Chelsea aan markaasi la gaaro labada kooxood hadii aan fiirino Arsenal waxaa ka maqan Mikel Merino oo la cadeeyay inuu kooxda ka maqnaan doono oo mataqaana xilli ciyaareedkiisa uu gabagaba noqday sidoo kale Maxi Doman ayaa sidoo kale ka maqnaanaya kooxda Arsenal waxaana shaki ku jira ninkii Bukayo Saka ayaantan Bukayo Saka juuca soo galayo waxa way shaki baa ku jira dhanka Chelsea waxaa ka maqan ciyaaryahan Lafi Colwell Tosan Adebayo iyo ciyaartooyda qadka dhexe ka dhashay Romeo Lavio iyo ciyaaryahanka Usugu la dhahayo ciyaaryahanka la dhahayo ayaa markaasi ka maqan oo kulankaani markaasi ka maqnaanaya macalinka kooxda wuxuu doonayaa inuu bishaani oo kulankaani guuleysto guul soo noqoshan lana ay markaasi gaaraan Chelsea hore ay markaasi ciyaartooydeeda u sheegtay waxay dhaheen kulanka ka dambe waxa way waa soo noqon karnaa maadaama 2 gool aan ka keenay kulanka dambe waa soo noqon karnaa bishan dhexdeeda ay markaasi bisha Mars ay noqon doontaa in kooxo ay iska xaadirisa finaalaha Wembley taasoo u sahlaysa markaasi labada kooxood oo markaasi kooxda ugu horeysay Wembley markaasi aada inay noqoto isla wararkaasi banaanka hadii inu ku sii jirno ninkii Cristiano Ronaldo ahaa xalayta waa ka maqnaa kooxdiisa waxaana leeyahay sababta uu ku maqnaa waxay ahayd gudood macnaha waxa leeyahay ninkii Cristiano Ronaldo wuxuu leeyahay aniga kooxda leeyma soo dhisin 3 sano meeshan jooga kooxda leeyma soo dhisin saas daraadeed dadkan waxa way anay mucaarad ugu yihiin saas daraadeed ninkii Cristiano Ronaldo uu wuxuu xitaa sanduuqa dakhliga ee Sacuudiga ayuu ku xanaaqayo isla leh kooxaha Al Hilal Al Ittihad Al Nassr iyo Al Ahli 3-4taas iyaga isla leh marka kooxaha kale inta si fiican u dhistaan aniga si fiican ima dhistaan ayuu markaasi leeyahay waxa jira marka kooxo kale inta oo markaasi ku raba inay ciyaaryahankan qaataan oo ay markaasi ku soo celiyaan sidoo kale isagana wuxuu dareensan yahay kooxda dhankiisa markaasi laga nacayo kooxdu ay mataqaanay isaga ka sii jeesatay
waxaa lisleeyahay ninkan MLS-ka armo ku biiri kara oo Ronaldo iyo Messi mar kaleento ay halkaasi ka samaysan karaan heshiis kaleento. Sidoo kaleento waxaa lisleeyahay army Real Madrid markaasi ay ninkii ay sugootin qatar intay u samayso oo ay dib ugu soo celisaa, ama Manchester United oo kadib uu ka baxay Amiron arma dib loogu celin karaa kadib 3 xilliyeedii Premier League oo la qaaday kooxda Manchester United. waxaa lisleeyahay ama Man United uu ku noqon karaa, laakiin wararkaasi oo dhan waxay noqonayaan kuwo markaasi feega oo ninkan inta uma badna in Man United ama Real Madrid midkood uu ku biiri karo, laakiin waxa uu furan waxa way dhanka MLS-ka Mareykanka. dhanka kaleento tababaraha kooxda madaxweynaha kooxda Barcelona Laporte waxa uu tilmaamay in Juan Hansi Flick uu yahay macallinkii uu aad u jecel yahay, sidoo kale intana og falsafada kooxda Barcelona. waxa uu leeyahay ninkan isagoonba macnaha meeshan inta badan joogin haddana wuxuu og yahay DNA-gii Barcelona ayuu leeyahay baa lagu leeyahay. saas daraadeed ninkan uu sii ahanay wuxuuna leeyahay ninkii Laportaha intaan aniga madaxweyne ka ahay meeshan uu sii joogi doonaa. haddii aadan la soconin dhawaan ama sanadkan dhexdiisa ayaa waxaa la gali doonaa madaxtinimada kooxda Barcelona loo tartami doonaa oo cidda ku guuleysan doonta ayaa waxay noqonaysaa madaxweynaha 5 sano ee soo socota kooxda Barcelona. Laporte wuxuu ka mid yahay macallimiinta ama madaxweynayaasha ama dadka shakhsiyaadka ay u tartamaya madaxtinimada kooxda Barcelona oo markaa doonaysa inay dib ay u helaan. wuxuuna leeyahay Hansi Flick wuxuu sii ahaan doonaa macallinka tan iyo sanada 2027 ayuu heshiiska uu Barcelona kula jiro ay ku egtahay, laakiin Hansi Flick waxa la leeyahay heshiis saxiixi maayo ilaa uu ogaado yaa noqonaya madaxa kooxda Barcelona ama madaxweynaha. dhanka kale Yamal waxa uu isagana sameeyay heshiis cusub iyo waliba warweyn oo markaasi ka caawinaya kooxda Barcelona inuu inta badan sii joogo. waxaana la leeyahay ninkii Yamal ahaa kulamadii hadan ama bandhig heer sareeya oo uu sameeyay awgeed waxa loo magacaabay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ama daayarkii ugu wanaagsanaa Spain. majalada markaasi Deportivo ay markaasi bixisay oo ku guuleystay markaas Mundo Deportivo ay bixisay arinkaas dhexdeeda lagu weydiiyay oo uu ku sheegay in ciyaaryahankan uusan marnaba dooneynin inuu ka tago kooxda Barcelona oo wuxuu yiri waxaan joogaa kooxdii ugu fiicneyd, waxaana joogaa magaaladii ugu fiicneyd, saas daraadeed marnaba halkan markaasi ka tagi maayo ayuu leeyahay. ninkii Jaguar oo lagu garaacay kooxda Chelsea wuxuu leeyahay halkan sababta aan ugu soo biiray waxay ahayd caruurnimadeedii aan jeclahay. horta niyo midaan marunba mise waa been, qof walba oo kooxda uu ku biiro wuxuu ku leeyahay caruurnimadii ayaan jeclaan jiray, haddana waxa laga keenaa before iyo after laga keenaa. laakiin ugu dambeyntii wuxuu leeyahay ninkan sharaf weyn ay tahay inaan Liverpool u saxiixay, waxay ahayd kooxdii caruurnimadeeda aan ku tashan jiray, hadda waxaan rabaa inaan kooxda Rennes aan wax fiican la soo qabto inta ka dhiman xilli ciyaareedkan ka bacdina aan kooxdeeda u soo noqdo ayuu markaasi leeyahay oo aan wax fiican la qabsado. ninkii Roberto Lewandowski ana wuxuu leeyahay ilaa ay haatan go'aan kama gaarin halka aan ku biiri doono, go'aan kama gaarin, xilli ciyaareedka dhamaadkiisa ayaan la sugi doonaa oo aan arki doonaa waxa dhaca, maadaama uu markaas is leeyahay arma madaxweynaha inta la bedelo adigana lagu cimaamada macnaha hal sano kale inta dheeriya arma lagu siiyaa buu is leeyahay. laakiin wakiilkiisa waxa uu xiriir la sameeyay MLS-ka iyo kooxda Chicago Fire, waxaana la filayaa in ciyaaryahankan uu aadi karo halkaasi MLS-ka oo mar kale inta Messi iyo halka ay isku qaban doonaan. dhanka kale Real Madrid waxa loo keenay lacag 40 milyan, waxa la yiri 40 milyan qaado Dean Hudson si way diiday, waxay tiri bawaala tiridek 40 milyan maxay tahay ana lacag ka badan ninka hadirtaan sanadkan la ka soo bixiyay 40 milyan si uu keenaysiin. micnaha ninkii 40 milyan lagu soo dalbaday kooxaha Newcastle iyo Aston Villa ayaa soo doontay 40 milyan markaas hoosta u soo galiyay kooxda Real Madrid, laakiin waa ay diiday warkaasoo waxay tiri aniga 40 milyan ma qaadanayo, waana uu ka sareeyaa qiimaha sidoo soo ay tahayna maba iib iga maba ahaba ninkan oo ma taqaanaa iska gadi maayay ay markaas leedahay. dhanka kaleento wararka kaleento markaas jira waxa qayb ka ah Pep Guardiola iyo kooxda Manchester City. warar badan ayaa markaasi sheegaya in Pep Guardiola uu xilli ciyaareedkan marka uu dhamaado uu ka tagi karo kooxda Manchester City, waxaana la sheegayaa sidoo kale macallimiin badan inay qayb ka yihiin kuwa u sharaxan inay markaasi ay qabtaan oo Pep Guardiola gadaashiisa ay kooxda Man City sii wadaan. waxaa ku jira macallin Enzo Maresca oo laga ceyriyay kooxda Chelsea sanadkani ama 1 bishii January laga ceyriyay kooxda, wuxuu qayb ka yahay macallimiinta u sharaxan. waxaa sidoo kale ku jira Cesc Fabregas oo wacdara ka dhigaya kooxda Como, sidoo kale intana ciyaartooy da'yar isku aruursaday oo wacdara ka dhigaysa markiisii ugu horeysay macallimiinta
macalinimo wax weyn markaasi sameynaya. Sidoo kale waxaa ku jira macalinka kooxda Real Madrid ay hadda soo celisay macalin Xavi Alonso, waxaana la leeyahay liiska saddexda macalin ee bedeli kara Pep Guardiola waxaa ku jira macalin Alonso, Cesc Fabregas iyo weliba Enzo Maresca. Man City waa yaqaanaa, horeyba uu la soo shaqeeyay mataqaanaa. sidoo kale Pep Guardiola uu garanayaa macalin Xavi Alonso marka loo fiiriyo oo horeyba iskula soo shaqeeyeen. sidoo kale Cesc Fabregasna kama foga. Karim Benzema wuxuu si rasmi ah ugu biiray kooxda Al Hilal, afka hore ee weerarka ee Al Hilalna saan uu noqday. Darwin Núñez iyo Karim Benzema yaa is leedahay waa uu noqon doonaa weeraryahanka koowaad ee kulanka ama weeraryahanka koowaad ay markaasi ku ciyaareyso. Kooxda Barcelona caawa waxay ciyaareysaa kulankii Albacete wareegga 8 ee tartanka Copa del Rey, waxayna la ciyaareysaa kooxdii ka yaabsatay Real Madrid. Armani wadadaas ma waxay dhihi doontaa anaga Real Madrid ma nihin mise ciyaalkan mar kale ka yaabsan doonaan koox kale inta markaasi weyn. Labadan qofna waa labada ciyaaryahan ee kaliya ee Europe haatan jooga caawinta ugu badan sameeyay, 10 caawin iyo wax ka badanna markaasi sameeyay. waa labadee Bruno Fernandes iyo sidoo kale ciyaaryahan Olise oo kooxda Bayern waxay noqonayaan ciyaartoydii ugu horeysay markaasi sameynaya caawin wax badan, 10 caawin iyo wax ka badan. xalayto watii la soo gabagabeeyay mataqaanaa tartanka aan dhahe suuqa kala iibsiga jilaalka. waryaab laha marka soo baxay wararka waxay sheegayaan kooxda Vaniyot waxay rabtay inay isdhaafsi ay samayso oo ninkii mataqaanaa Yusuf Al-Nazairi ahaa inay geyso kooxda Itihad, sidoo kalena ay soo qaadato ninkii N'Golo Kante ahaa. warkaas sida uu socday waxaa la yiri heshiiskaasi FIFA ayaa diiday. maxay ku diiday? waxaa la leeyahay dokumentiyada ay isdhaafsadeen labada kooxood ee Itihad iyo Vaniyot labadaba waa qaldanaayeen. saas daraadeed heshiiskaasi saas lagu kansalay oo Itihadna saasay markaasi ku kansashay. ugu dambeyntiina Barcelona waxaa loo cilaamiyay in sanada 2029 finalka Champions League lagu ciyaarayo garoonkeeda. finalka Champions League 2029 Camp Nou ayaa markaasi lagu balansan yahay, iyadoo weli ay tahay kooxda Champions League raadinaysa 15 inkastoo ay sanadkii hadeer ku dhawaatay. haddana waxaa la leeyahay sanada 2025 iyo Camp Nou 2029 iyo Camp Nou wuxuu noqon doonaa champion-ka finalkiisa. Assalaamu calaykum. haddii tahay saaxiib horeyta noola joogay leegta iyo sheerta noogu dadaal si saaxiibo badan ay markaasi u gaaraan. haddii aad tahay saaxiib nagu cusubna subscribe-ka noo saar. Assalaamu calaykum.